السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال waxaan jecelahay biidin illaahi tacaala maanta inaan idinla wadaago qiso i saamaysay. qisadaasi waxa ay ka dhacday dalalka khaliijka dal ka mida. sheekha qisadaa ka sheekeynaya waxa uu yidhi nin dhalinyaro ayaa ii yimi. waxa uu igu yidhi sheekha waxaa jiray nin aanu asxaab ahayn. dee dhalinyarada sida caadiga ah dhalinyaro iska baashaalaya oo iska ciyaaraya oo nolosha iska raaxaysanaya oo wax diin la yidhaahdo iyo wax dadka xadidaya oo akhlaaq iyo dhaqan ah aan lahayn baanu ahay. wuxuu yidhi inaan asxaabtii ka mida ayaa maalin maalmaha ka mida annagoo iska caweynayna waxa uu noo keenay mobilkiisii isagoo ay ugu jiraan sawiro iyo fiidiyoyo anshax xumo ah. aad baanu ugu faraxnay, waanu daawanay, waxaanu nidhi xageebaad waxaan ka soo heshaa. wuxuu yidhi waxaan ka soo helaa meel aniga ii gaara, website gaara ayaan ka soo helaa, lacag baan bishii ku bixiyaa website-ka. wiig kasta waxaa la ii soo diraa fiidiyoyadii ugu dambeeyey ee markaa xumaanta iyo galmada iyo anshax xumada oo dhan sawirayay iyo sawiradii. waxay yidhahdeen website-ka noo sheeg, aanu annaga qudhayadu ka qayb qaadano website-ka galneen. wuxuu yidhi maya, anaa culayska o dhan idinka qaaday, 500 oo dirham baa layga qaadaa bishii, 500 baan anigu idinku soo dirayaa, emailadiina isiiya. raggii meesha joogay oo dhan emailadii buu ka wada qortay. deetana emailkiisii buu geliyey in uu automatically marka emailka noocani uu usoo dhaco uu u gudbiyo. arrintii buu ku xidhay. wuxuu yidhi wiig kasta waxaana loo keeni jiray sawiradii ugu dambeeyey, muuqaaladii ugu dambeeyey oo aanu isla daawan jirnay, ku faraxsanayn, aada uga heli jirnay. maalintii dambe iyadoo dhowr markaa wiig laga soo wareegay ayaa inankii shil galay. inankii emailkaa lahaa ee anshax xumada qaybinayey 50 email wax ka badanna wuu u qaybinayey. inankii shilkii buu ku dhintay. wuxuu yidhi markii waxaan ka qayb galay aaskiisii, markii la maydhayey baan la joogay. markii aanu aaska ka nimi ee aan guriga imi baan emailkaygii furay, mise email cusub oo daqiiqada ka hor uu iisoo diray baa ku jira. waan furay mise waa fiidiyoyo sekis iyo quruna. waan naxay, shaydaankan iska naaray, waan dhileed gareeyey. wuxuu yidhi wiiggii labaad ayaan arkay emailkii mise email cusub baa igu jira. waan furay mise waa isagii. xabaashana wiig buu ku jiraa, muddo 7 cisho ka hora buu geeriyooday. sheekha marka uu imanayaa markaa waa 2 sannadood kadib. wuxuu yidhi sheekhow 2 sannadood iyo barh baa ka soo wareegtay, wiig kastana aniga emailkayga iyo emailadaas usoo diraa. maalintaa hore waxa aan sameeyey markii aan ogaaday in automatically ugu xidhay, waxaan la hadlay qoladii website-ka emailka bixinaysay. waxaan ku yidhi ninkan wuu dhintay, shil buu ku dhintay, waxaad samaysaan emailka joojiya. waxay yidhahdeen passwordkii emailkana sii, aanu joojinay. wuxuu yidhi ma garanayo. waxay yidhahdeen haddaba 4 sannadood iyo badh ayuu markaa sidan kusii shaqayn doonaa. 2 sannadood baa iminka ka soo wareegto, saasuu emailka u qaybinayaa. bal ka warrama, dembigii wuxuu u socdaa isaga oo xabaasha ku jira. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka ayaa wuxuu ku yidhi innaa naxnu nuxyi lmawta wanaktubu maa qadamuu wa aathaarahum wa kulla shayin axsaynaahu fii imaamin mubiin. ilaahay waxa uu yidhi noolaha annagaa dadka dhintay noolayn doona aakhiro. dadkii dhintay annagaa soo noolayn doona, waxaanuna qori doonaa wixii ay horu marsadeen oo camal wanaagsana iyo raadkii ay ka tageen. idan walaal, iska hubi waxa aad samaynaysid maanta oo aad qaybinaysid, ama mobilkaagu kuu gudbinayo, ama kamaradaadu gudbinayso, ama aad af ahaan u gudbinaysid ee sii hadhi doona. billahi baan ku dharshe, miyay siman tahay ninka hees ka tegey, music la dhegaysanayo isagoo xabaasha ku jira ka tegey, filimo xunxun oo uu sameeyey ka tegey, iyo ninka wacdi iyo khayr iyo diin ka tegay oo sidaa usii hadhaysa. waxaan rajeynayaa insha allahu inaad kuwaanad qaadan doontaan, aniga iyo idinkuba aynu kuwaana qaadan doono inankaa xaaladiisa. ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrka hayna waafajiyo, adduunkana dad ilaahay diintiisa u shaqeeya haynaga dhigo. wasali allahuma waslama calaa sayidina moxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin.